qarax gaari oo jugtiisa inta badan laga maqlo magaalada Muqdisho ayaa xalay ka dhacay iskooyska kiiloomitir 4 ee magaalada Muqdisho. qaraxan ayaa nuuciisu ahaa miinada dhajiska waxaana lagu xiray mid kamid ah gawaarida raaxada. gaariga qarxa ayaa waxaa watay injineer Maxamed Cabdi Kaari oo kamid ahaa dhalinyarada firfircoon ee ka shaqeeya qandaraasyada dhismaha ee magaalada Muqdisho. dhanka kale iska horimaad muddo kooban socday ayaa xalay waxa uu ka dhacay iskooyska Siinay ee magaalada Muqdisho halkaas oo joogeen ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliya. goobjoogayaal ayaa keenan u sheegay in iska horimaadku uu sababay dhimasho iyo dhaawac. inta la ogyahay hal qof ayaa ku geeriyooday halka 3 kalena ay ku dhaawacmeen. arrintaani ayaa ka dambeysay kadib markii ciidamada ay ka shakiyeen gaari ay wateen rag hubeysan taa oo kadibna ay ku amreen inay istaago balse rasaas ay ku soo rideen kooxdii gaariga saarneed.